waxaan u yeeris wareysanay wasiirka hadda xilka wareejinaya agaasimaha inihii aan halkan soo gelin bal waxaan iska wareysanay dee xooluhu inay laf dhabarta dhaqan dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed yihiin in badan baynu maqlayni oo qof aan xoolo si uu ula tacaalin mid riya raaca iyo mid mataqaanaa geel raacaba iyo mid loo dhaqdaba hadday ugu yartay mid digaag dhaqdaba Soomaalidu si toos ah xoolaha ugu xidhan tahay xogay beeraha iyo xooluhuna waaba isku dhex jiraan waxay xooluhu saameeyaan dhaqankeena iyo habka aynu u noolnahay waxay qeexayaan qofka aad tahay waxay saameynayaan waxaad maalin walba ku aloosan tahay dhaqankaagu saameynaya dhaqaalahaagu saameynaya sida ummadda ay ku aragto saameynaya shakhsiga aad tahay ayay wax ka sheegaysaa dadka Soomaaliyeed markay miyiga joogaan xoolahooda dhaqanayaan dad bay ahaayeen aad u tacab badan u dadaal badan u adkaysi badan ilaahoodana intay tawakkalaan duruufo walba ku jira la tacaala xoolahooda intii qaranku ka jabay adkaysigii iyo dhaqankii ay kala yimaadeen meelaha baabay ku samata baxeeno qoomiyado kale waxa laga yaabaa inay sida lo'od iska la'aan lahaayeen marka adkaysigaas halkaas inooga imanaya waxa hadda la yiri xoolaha guud ee dalkeena ku nool ee la dhaqdo waa 56 milyan sida uu agaasimo ii sheegay mar dhawo inaha tirada hadda la cabiraya waxa inta raacada in boqolkiiba 50 ay ari yihiin ariga anagu xagga waqooyiga riyaha iyo idahaba ari baan u naqaana hadda halkan laakiin ari cad iyo waxa loo kala saarabale ido marka labadaas oo la isku darayna waa boqolkiiba 50 geelu waa 7 milyan meelahaas baa la yiri lo'duna waa 20 milyan populationkii Soomaaliyeedna waa ilaa 14 hadda meelaha milyan inta la qiyaasay tira sax sar loo helo weerag tahay horta halka waxa ka cad wasaaradani waxa loo igmaday hawl yar ma waxa ku yimi koror lixaad leh xoolihii Soomaalidu ay dhaqanaysay waxa kaloo ku yimi koror lixaad leh tiradii dadka Soomaaliyeed deegaankuna waa intii seeraha ahayd intii kayn ahayd oo la xalufiyay badi intii lagu foofayay dhulku waa dhulkii koror iyo kobc baa ku yimi adduun weynaha meel xoolaha sida aynu u dhaqano looga dhaqdaa horta way yarta oo qofkii Soomaaliga xoolihii buu daba socdaa adduunka kale xoolihii wax la yiri annaga idin hagayna oo waa la xareeyaa oo waa la dhaqaa oo meel baa calaf loo dhigaa oo waa la kaydiyaa horta wasaaraddan waxa la rabaa berisamaad baa laga warramay berisamaadkii beri ka duwan inaad keentaan baa la rabaa berigan waxa loo baahan yahay aqoon cusub waxa loo baahan yahay garasho cusub waxa loo baahan yahay caalamku halka uu guuray inaan ula guurno walaalayaal waxa halis ku jirta dad ahaan iyo deegaan ahaan saynu u sii jiri lahayn ba halis ku jirta halisaha u waaweyn ee Soomaaliya soo food saaraya ee daran waliba marka durugsan la eega waa isbedelka deegaanka ku imanaya iyo xaalufinta lagu sameeyay dhartii iyo xoolihii waxay daaqaan la waxaad arkaysaa dooxooyinkii iyo meelihii xooluhu ay ku foofi jireen ee cagaarka wada ahaan jiray iyo dooga hadda dhas baa ka kacaya taana waxa keenaysa ugu yar waa cagta dadka marka meeshii 4 qof ay mari jirtay 4 kun oo qof maraan geedba ku hadhi maayo mid gaaban iyo mid dheerba horta talada u horeysan wasaaradda siinaya waxa weeye inay si wada jira ula shaqeyso wasaaradda oo dhan asaasan ku soo waaniyay wasaarad beeraha ah ama xoolaha ah oo kaligeed intay dhinac u baxdo wax furdaamin kartaa ma jirto waxay u baahan tahay wasaaraddu inay kaashato la shaqeyso wargeliso wax barto wasaaradaha kale ee ay shaqada la wadaagto ilaan xoolihii dhul bay marayaan Soomaa wasaaradda hawlaha guud say wuxuu dhisayso waa in la eego xoolaha iyo socodkooda iyo waxa la waafajiyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashadu waa inay shakhsigii reer guuraaga ahaa aqoon horta gaarsiiso si hadda uu xoolihii cilmi ugu mataqaanaa ku dhaqo wasaaradda cusub ee hadda la sameeyay isbedelka cimilada iyo deegaankana
shaqadiina way isa soo galaysaa macnaheedu maaha waxbaad isku qabsanaysaan shaqo idinku filan baad haysataan wasaaraddaana waxaa la rabaa inay shaqo la yaqaan qabato oo sababta loo aasaasayba waxay sheegaysaa ahmiyadda ay leedahay wasaaraddana macnaheedu ma aha ahmiyaddeedii waa laga guuray markaa si wada jira oo iswaafaqsan oo iskabta baan rajaynaynaa inaad u shaqaysaan waxaa la rabaa markaa aqoon cusub iyo garasho cusub inaad la timaadaan paradigm shift isbeddel xagga fahamka ah in la keeno xilligii kacaanka marka hawl weyn la dhaqaajinayo awood ballaadhan baa la isticmaalayay waad ogtiin luqaddii waxaa lagu qoray ayaamo kooban beerista dhirta waxaa lagu fuliyey ayaamo kooban awooddii saa u ballaadhnayd iyo military dictatorshipkii markaa jirtayna ma nihin iyo raggii berigaa jiray ee xogay ayaamihii hore qulubtooda isu soo jeeday hadda gobollaynu ka koobannahay degmooyin baa laga kooban yahay waxaa la rabaa qolo walba inta doorkeeda la siiyo oo fahamkeeda la dhegaysto in si wada jira hawsha loo galo adduunkii aynu wax u dhoofinayna wuu isbedelay xag caafimaad xag calaf xag iibgeyn xag daryeelid shaqo fara badan baa idiin taalla annagu haddaanu nahay sida uu wasiir xasan ka dhawaajiyey wasaaradda xafiiska ra-iisul wasaaraha waanu idinla dadaali doonaa wasaaradaha kalena inay sida ugu habboon idinla shaqeeyaan baanu abuuri doonaa foramo si wada jira loo wada shaqeeyo guul baan idin rajaynaya dadaal yari iyo ma arkaysaa raggan ku tuhmi mayne idinna sida aad wasiirka hore ula shaqaynayseen ula shaqeeya ragga hore ee khubrada ah ee cilmigii hore wax ka og iyana in aad loo dhagaysto oo wixii la soo maray nimaan ogeyni saadaasha tan cusub wax kama qaban kare inaad ka bogotaan waayahay soo maray wixii la qaban jiray markaasaad ogaanaysaa waxa lagu dareeyay dhalinyarada cusub ee wax baratay ee jaamacadaha ka soo baxdayna iyana fursad ha la siiyo labadaas la iswaafajiyo guul baan idin rajaynaya oo mahadsantahay